والكي والبحر كي وزير بكون نقضي الشيخ مختار روبو أو منصور أيام مالته وحكم نقضي قالها وزير هذا حكومة رئيس الوزراء حمزة عبد الرحيم حل وزير أيام ما مقعبي سيديبا يكون على إن قالها وزير هذا والشيخ مختار روبو أو منصور كم نقضي يا وتي قرشها أحد والشيخ مختار كم نقضي قالها وزير هذا رئيس إنتاج لأجبو عبد العزيز لفت جرين وصاري الشيخ مختار روبو سيقولن قالها وزير هذا وكم نقضي قدوميها قولها شعبك الشيخ آدم مدوب محوكي يري مركي لوبا نجي قولها وسيرة أيو كم نقول أي شيء مختار أو منصور أنت إلا إقبل شعبك غير كفر قلبين أو فرحين وكم نقول قولها وسيرة الشيخ مختار أو منصور دقلي يبلف لي ماضي أي كل حير معمر كفر قلبين دعسي سلفت جري المدرر وكل أديجري مركي قولها وسيرة وكم نقول الشيخ مختار أو قان عين كه أبي قاعتين وأسيدي حالة دم مجالة بينهم جوي قد بالدق سولوين تشيخ مختار روبو قديه كمامل كفر قلبين قرب الجوب تغير كفر قلبين وكسو جيد الدقلي يبلف لي سيدا يوار كيان شعب ككلاء كوكر عسر محبوس كي دبعتها فرح بدل وعي إنه ما أنت قولها وسيرة كسر موضوع واحد بدل بأوبح عن إنه مدة صومالية لا افتميه بل ما أنت عن إذا كلابل أنا وكواد الدقلي يبلف لي إيه صاحبك كواد أما ورالك كواد الدقلي يبلف لي ما أنت عن إذن برو أنا والشيخ مختار روبو أو منصور هي صاحبك الشيخ مختار روبو أو منصور شعبك الصوماليات يولي بمجاعبستا الشيخ مختار روبو وصل على حد يوم واحد لي أيام سيدو كان يفتيمين دون أن أنتم سولوا هذا موقع كامر كويدي سوغا روسي شرقري يحدو الله يمو الشيخ مختار روبو أو منصور رفاقتي راحة وقدر بيسي حبسيين حلبو كهري حبسيين حلبو كهري والكي والبهركين وزير أيوكون نقضي taasi waxay ku tusinaysaa qofkii samra inuu sirkiisa helayo qofka samra oo dulqaata oo la yimaada iimaan inuu maalin maalmaha kamida guushii noloshiisa u gaarayo ninkani foolxumo ayuu kala kulmay dowladii maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu kula kacay sifo aan waafaqsanayn nidaam dastuuri ah ama nidaam dowladeed wuxuu ku weeraray baydhabo Ethiopian ayuu u adeegsaday gacanta ayuu ku soo dhigay حبسي أيو دحدقي وليبا محكمة لبسعر تاسو كنت سنيسا إن شيخ مختار روبو حاقف أفضوبا أو أن هبيناتي حرية هيسن مددي وحبسي يكوجر حتى وحلقوه رستاقين إهلدو سيني بوغدان تاسو كنت سنيسا حتى موادنك الصومالية إنه يكون تهي أرين ليدكو هاي أدوغ الصومالية أيو كنت المامنان يقفكي موادن محكمة جيو أيو oo waliba u diiday in ehelkiisu ay soo boqdaan anigu ma dhihi karo muxtaar roobo dawladda Soomaaliyeed u xirnaa ee waxaan dhihi karaa cadawga Soomaaliyeed u xirnaa sababtoo ah muwaadin loo ma diido in uu 48 saac gudahood maxkamad uu istaagi waayo inta u diido waa cadawga Soomaaliya 48 saac iska daayay 3 sano iyo dhowr bilood loo diiday in maxkamad la horkeeno dadkii uu ka dhashay baa laga hor istaagay marka anigu muxtaar roobo dawladda Soomaaliyeed ma xirnaa wuxuu u xirnaa cadawga Soomaaliya haddaba sideeba wasiirku noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa qofka ku dhagay oo waliba waday arrinta ah inuu wasiirada ka mid noqdo sheekh muxtaar robo sabab kale ah intii uu loolanka siyaasadeed iyo tartanka madaxweynenimo uu ku jiray madaxweynaha jamhuuriyadda waraysi laga qaaday ayaa jira waraysigaas uu ku sheegay in sheekh muxtaar robo uu u xiran yahay afduub oo aan la oran karin inay tahay mid waafaqsan sharciga maalinta uu xasan sheekh hadalkaasi dhahayay bal aan marka hore dhageysano si aad u ogaatid hadalka aan sheegayo inuu xasan sheekh maxamuud sababteedu leeyahay bal ila dhageysta xasan sheekh oo xabsiga sheekh muxtaar ka hadlaya waqtiga uu farmaajo u joogay xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri muxtaar robo sida loo handal garay sax ma aha legally sax ma aha fi arinta shabaab muxuu ahay dadka incentive in la siiyo shabaab inay ka yimaadaan muxuu ahay sax u maaha muxtaar robo aniga hadda ka horna waan ka hadlay haddana still waan ku celinayaa he is kidnapped muxtaar robo waa la afduubtay someone oo kidnapped ah ayaan dhihi karaa for political reason not for security not for al-shabaab maalintaas oo ballan qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu kursiga tago in sheekh muxtaar robo uunan xabsi ku sii jiray maxaa yeelay tilmaamaha uu madaxweynuhu bixiyey waagaasi musharax madaxweyne u ahaa waxay ahayd arrin afduuba waa sax muxtaar robo dowladda farmaajo waxay noo sheegtay inuu ka soo laabtay nidaamkii argagixisada in la cafiyey dowladdii farmaajo ayaa shaacisay shir jaraa'iduu muqdisho ku qabtay weliba waan idin xusuusinayaa 14 Oktoobar 2017 qaraxii ka dhici jiray Soobe dadka dhiigga ugu deeqay dadkii ku dhibaatoobay ayuu muxtaar robo ka mid ahaa maalintaasi dowladdu waxay tiri waa ka safar dibadda loo diray safarkii dibaddu ka soo laabtay markuu baydhabo tagay oo doorasho u galay markaas la yiri maya
hadduu tartamo koonfur galbeed gacantayna way ka baxaysaa kadibna Itoobiya baa loo adeegsaday gacanta lagu soo dhigay dawladda Soomaaliya sidee u dhaqantaa qofka dambiilo uu noqon karaa dambi waa loo qabsan karaa laakiin 48 saac qof xabsi lagu hayo oo maxkamad loo diido macnaheedu wuxuu noqonayaa nidaam dawladeed ma aha waa nidaamka cadawga Soomaaliya farmaajo wuxuu ahaa cadawga deegaankaas cadawgii Soomaaliya cadow dhibaateeyay nafta Mukhtaar Roobowna xaq Allah ka noo shahmooyaan marnaba uguma talagelin Maxamed Farmaajo uu si nolola ninka ku sii daayay Mukhtaar Roobow saasal ugu soo qabtay 3 sano iyo dhowr bilood wuxuu u xirnaa sifo aan sharciga dhan waafaqsanayn oo afduubkii waa laga soo saaray ballamada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday bay kamid ahayd ninkii Xasan ahaa markuu waa ku dhagay wuxuu golaha wasiirada ilaa inuu ka mid noqdo waxaa ku raacay oo rabaa shacabka koonfur galbeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inuu sheego Sheekh Mukhtaarna inuu wasiir noqdo ku raacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Aadan Madoobe waa uu soo dhaweeyay go'aanka madaxweynaha ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa soo dhaweeyay marka reer koonfur galbeed uu Sheekh Aadan Madoobe ka soo jeeda horta ogaada shacabo reer koonfur galbeed mudnaanta koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda iskale mudnaanta labaadna Sheekh Aadan Madoobe dhinaca koonfur galbeedna mudnaanta koowaad ayuu Sheekh Mukhtaar ku helayaa على كل حال أرنتاس ويسعة مدرب نكي لفت جرين حابا مقلين وضعونا لفت جرين صباين وشتو جد كستو أمرين إنه قلها وسيلة كورش تلونيك ولي بوحو جاري هير وقايل عن صدق تيم كي على الكودي دعي فرماجو وجامري لكن محا تبارا فرماجو مانتو وكسو كرنيك لفت جرين وأي أتكاتين قولي وزيرة دور مربع كلوبا لقى قبتي ولي بكرسي حتى الله مقعاوين wuxuu qayb ka ahaa kuraastii shalay ay u baaqatay golaha wasiirada in lagu dhawaaqo maxay Mukhtaar Robow kursigiisa iyo kursiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa baran ka taagnaa labadii kursi bay qayb ka ahayd maantana qalinka lagu duugay saacadii hore maanta inta aan golaha wasiirada lagu dhawaaqin waxaa kula wada qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka saddexdooduna arrinta ay la fogurayeen Sheekh Mukhtaar bay ahayd Sheekh Mukhtaar wuxuu codsaday in inta aan golaha wasiirada lagu darin la siiyo warqadda dawladdu ay ku cadeynayso inuu wax dambi ahayn si aan berrito loogu xadgudbin warqadiina waa loo diyaariyay kadibna golaha wasiiradu ka mid noqday wasiirka waqafti arrimaha diinta la dagaalanka argagixisada ayaa loo magacaabay ujeedada markuu Xasan Sheekh u magacaabay oo keenay in golaha wasiiradu loogu soo daro wax kala ah Soomaaliya dib waxa ku haya argagixiso dalkii Soomaaliya dalalka Soomaaliya dariska la ah waxa lagu darayo waa shabaab oo Mukhtaar Robow loo helina lama jibi karo runta idin sheegaya shabaab Mukhtaar Robow ayaa jibi kara Mukhtaar Robow oo masuul sababta loo keenay waa in la dagaalanka laga dhabeeyo shabaab laga saaro dhulka Soomaaliya waa ujeedada Mukhtaar Robow loogu soo diray golaha wasiirada wixii wacyigelinana isaga kusaysaa wixii taabagelin iyo dagaalkan al-shabaab lagu qaadi doonana qaybtiisu ka qaadan doonaa maxaa yeelay dhalinyaro badan oo qalbiga ka xadaan oo ay u sheegaan haddii aad isqarxiso jannaad gelaysaa iyo qofkaas hadaa soo disho aakhiro jannaad gelaysaa iyo kelmadihii saas ahaa oo aan diiniyan xataa aanan ahayn wax saxa dadka Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaam dhiigoodu janna lagu galiyo qofka ku yiraahdo waa qof beelow ah waana muuqataa in aan qof muslim ah oo shahaadanaya masjid jooga ama gurigiisa jooga ama wadamaraya inaad isku qarxiso janna aad arkayn qof kastoo iimaan la waa ogyahay marka Mukhtaar Robow kooxda ninka kaliya jibi kara weeyaan muddo 5 sano haddaan inaan xusuusiyo kaliya ayuu la dagaalamay 5 sano ayuu kaliya la dagaalamay maanta isagoo haysta dawlad iyo ciidan military oo qayb walba ah haddii ay isqabtaan isaga iyo shabaab وعلى halka ka dhacaysa marka waxa la yahay hambalyo taageerayaasha Sheekh Mukhtaar Robow Mansuur waan idin hambalyeynaya waad guulaysateen dabaashaadka Sheekh Mukhtaar lagu taageerayo dal iyo dibad bay ka socotaa magaalada Baydhabo ayaa kamid ah magaalooyinka ninkii lafta garan ahaa wax indhihiisu wax ku arkay ciidankii maamulka koonfur galbeed gaar ahaan soo majlistayaashii Digli iyo Milifle waxay qaateen qoragoodii min walba wuxuu leeyahay lafta gareenow Mukhtaar Robow dhiigayna weeyaan waana xaqiiqo dhab ah maamulka koonfur galbeed dhiig uu yahay Digli iyo Milifle hogaamiye uu yahay madaxweynahoodii dhabta ahaa maanta golaha wasiiradu ka mid noqday marka waxaan leeyahay qolooyin uqdadaysan oo reer koonfur galbeed oo Digli iyo Milifle mid waalan oo madaxa ka xiran oo aan baraha bulshada ku arkayo uu ka mid yahay waxaan leeyahay uqdada horta Allah idinka saaro Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud maanta waa kala aragteen ninka ku gala iyo ninka gacanta ku siiya laba kala yihiin hawiye maanta sidoo idin jecel yahay Digli iyo Milifle wad u jeedaan ninka shalay saas idin galana nin Soomaaliyeed oo daaroodo mareexaan ayuu ahaa maanta ninka xabsiga ka soo saaray wasiir ka dhigayo qiimeeyo sharfayo karaameeyay waa nin Soomaaliyeed oo hawiye oo hiraabo muduloodo abgaar
ما أنت قفك باش أقدش الدقري ملفلو لقد عدعينه يهوية عدو لكوة ما أنت واحد مركاتكتهم عدو كوات الدقري ملفل عدة مركاتك بوحدة أيات كتير waxaan rabaa inaan la hadlo qolooyin dee qafiifo qaba oo mid madaxa ka xiiranayo mid samboor qaba iyo oo intaba ka soo jeeda maamulka kan samboorka qaba wuxuu ku leeyahay dowladda wax ka sheegaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh nin oo qalbo aan iska maskiino ilaahay xalkiisa u yahay iska caafimaadka la bixiye nin iska samboorayso oo ilaahay xalkiisa u yahay weeyaan marka waxaan leeyahay inta uqdadaysan inta la doonayo uqdada in lagu beero دقلي يملفله ما أنت ويكلا جرنا يعني قفك ورالكود إيه قفك عدم وضح نك الشرق وصل دولي بين بدرك كل عين إيه نك ما أنت كرامية إسكو مد معها مركب وحلا يا شيخ مختار أو رفعت كراحة كذا بيسوي دو جدا حبس دي حلبة تكون هالشيء ودو جدا والكي والبهركي وزير بتكون نقطتين بل همبليو برنامج كان شيخ مختار كليا يعني وهذه قالوا وزيرنا وصوبا وانا كان دولا من مد ايام كلا نبي دولا والله يهو خاصه روح نفتي دولا وزيرو runtii iyagana u baahan inaan ka faafo